kulan wanaagsan saaxiibayaal soo dhawaada waxaan rabaa inaad la wadaago xogta wararkii ugu dambeeyay dagaal beeleed sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac ama tira markaas lagu qiyaasay 10 kor u dhaafayso iyadoo oo maalmihii ugu dambeeyayba xiisadda iyo saansaanteeda si weyn ugu socotay degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha Hoose ee markaasi si weyn muddooyinka ugu dambeeyay dadka beelaha walaalaha halkaasi sida markaasi naxariis laanta isku leeynayay haddaba maxay tahay waqtigan waxa ku soo beeqaamay iyadoo dawladda markaasi dhinacyo far badan ay doodo ugu furan yihiin in waqtigan la joogay dadka walaalaha ee beelaha wada degana ay xiisadoodu iyaguna cirka isku soo shareerto xogtaasi iyo waliba macluumaad kale ee ka qarsoon ayaa rabaa in halkan kugu la wadaago haddii ay tahay markii ugu horeysay uu ku soo gaaro fadlan ka mid noqo channelkeena soo subscribe followna soo dheh barteena TikTok-na ku soo biir muuqaalkana si share gareey mahadsanidin soo dhawaad saaxiibayaal degmada Cadale gobolka Shabeellaha Dhexe waxa markaasi maalmihii ugu dambeeyay ka socday saansaan dagaal iyo waliba sidoo kale taasoo salka ku haysa aanooyin qabiil ama dad beelaha walaalaha halkaasi wada dega wararka ka imaanaya ayaa sheegaya in saacadihii ugu dambeeyay si weyn halkaasi ugu dagaalameen laba beelood oo walaalo ah oo halkaasi wada dega taasi oo sababtay ama dagaalkooda oo sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac sida lagu soo waramaya ama ay sheegayaan dad goobjoogayaal in markaasi ay jiraan khasaaro aad u fara badan iyo iyadoona markaasi labada dhinac ay iska dileen dagaalkana markaasi salka uu ku hayo aanooyin qabiil oo sababay ee markaasi in labadan beelood ay iska laayaan dadka maalin hore ayay sidaan oo kale isku laayeen Cadale iyo waliba sidoo kale tuulooyin kale ku hoos dhow balse maalmahan aad ayuu u yara dansanaa mar kale maanta ay isku soo laabteen oo si weyn markaasi iskaga laayeen dad shacab ah oo wax magalabsata ah caruur iyo haween ay u badan yihiin iyadoona markaasi dagaalkan inta badan lagu sabeynayo ama lagu sheegayba in ay yihiin markaasi aanooyinka qabiil ee muddooyinka ugu dambeeyay sida weyn halkaasi ugu soo laalaabanayay walow war rasmi aan laga soo saarin ama maamulka halkaasi jooga aysan ka hadlin xaaladda dhabta ee halkaasi ka jirto iyadoona markaasi u muuqato inuu sii kici karo xiisadan markaasi labada dhinac u kala dhexeeda ee beelaha walaalaha ee wada dega degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa u muuqata inay markaasi muddooyinka ugu dambeeyay si weyn ay ugu soo laalaabanayaan dagaal beeleedyada oo sababaya dhimasho iyo dhaawac leh maalin ka hor ayaan halkan ku baahinay sheekada iyo waliba soo kale dhimashada dad dhalinyaro caruur yar ay u badan yihiin laakiin mar kale ayay maanta hadana u muuqataa in ay si weyn markaasi ay isku leynayaan misna markaasi ay isku soo fudsaareen inay mar kale halkaasi isku dagaalaan dirirtan ayaan imaanaysa xilli dhawaan ee markaasi labada dhinacbu ee madaxweynihii hore ee Shariif Sheekh Ahmed uu kala dhaxdhaxaadiyay ama markaasi ugu tagay fadhigooda iyadoona markaasi la kala qaatay gogol nabadeed laakiin si aan waqtigan u muuqata in aynan hirgelin oo aan markaasi halkeedii ay ka sii daaran tahay taasi oo sababtay dhimasho iyo waliba sidoo kale dhaawac aad u fara badan iyadoona markaasi wararka halkaasi ka imaanaya ay sheegayaan in xaaladdu ay tahay mid markaasi ee waqtigan la joogay loo baahan yahay in si markaasi weyn looga hortago wixii warar kale ka soo kordhay Shabeellaha Dhexe iyo waliba soo kale Cadale gaar ahaan dadka beelaha walaalaha halkaasi isku bartanida kula wadaagi doonaan si shirgare muuqaalka meel dheer naga gaarsiin qayb soo safaalada commentiga ayaa dib ugu wadaagi kartaan mahadsanidin barteena Facebook-ana ku soo biira